حاجة مرتو مرادو عكرنتا مسؤولكي ودنيو مسؤولكي ودنيو معصوم من ما انتبه أحمد باموت يستو كون معصوم من ما انتبه مرتديو هستنا أحمد باموت يستو كون معصوم من ما انتبه أحمد باموت يستو كون معصوم من ما waftigii aan hogaaminayay oo ugu horeeyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka saxaafadda inala inta halkan ka soo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa deegaanka aan halka ugu nimi ay mas'uuliyiinta simadu hogaaminayaan sida wanaagsan ay noo qaabilaan waa si aanu ka filaynay aad baan ugu mahad celinaynaa intaa haddaan ka gudbo sidii saaxiibadeed igu horreeya ay sheegeen annagu halkan waxaanu u nimi nabadayn baanu u nimi nabadgelyo in wixii halkan ka dhacay wax ka dambeeyaanay dhicin waxaanu u nimi inaannu u tacsiyeyno wixii ku dhintay in ilaahay naxariistana siiyo waxaanu u nimi inaannu u ducayno wixii ku dhaawacmay in ilaahay u boogadhayo intaa ka bacdi nabadda aannu maanta u nimi waxaan la qabaa hadalladayada iyo aaraadaannu ku soconnay saaxiibadii iga horreeyey ayaan la qabaa wixii canaana mas'uuliin baanu nahay oo dee dadka kan dawladda u ahaayoo mas-uuliinta waa qaadanaynaa maanta ka garnaqsan mayno laakiin waynu wada lahayn oo ismada iyo kuwa maqan iyo kuwa joogaan runtii aad bay u dadaalaan weliba aad baanu la socday aniga labadan wasiir aad baanu la soconnay oo ay ku dhibtoodeen oo ku rafaadeen oo weliba waxyaabo badan oo ay u heliyeen dayacay waxaan maanta dhacayna oo iska qadar ilaahay cidina ma jeclayn dawladina ma jeclayn mas-uuliyiin kalena ma jeclayn dadka ay wax kala gaadheenna ma jeclayn waa iska un qadar ilaahay baynu odhan maanta ay joogtaa maanta annagu halkan waxaan u nimi inaannu nabad buuxda halka ka shaqayno waad ku mahadsantihiin inaad naga macal qabateen waa filaynay waa waxaannu halka kan u soo marray waxaan marka aanu leenahay waa soo guuray halkaa dawladdii cidi kama maqnaa waxaas ilaa senataro federaal ilaa wasiirro federaal ilaa maxay ahayd toy ururadii haweenka oo wasiirkii ay hogaaminayso haweenka ilaa ciidamo ilaa dawladda oo gudoomiye baarlamaan culayska ay leedahay baanu halkaa u soo marray runtii aad baad u mahadsantiin waad nala qaadateen
wixii hadala oo kooban odayaasha kooban baanu ka wada hadli doonaa haddii alla yidhi laakiin nabadda aanu maanta la soconnay oo aad naga guddoonteen baanu idinku mahad celinaynaa sideedaanu u qaadanay waxaan idiin sheegayaa ma noqonayno dhirtaas waliba anu dhirta aad baanu aqaan ku noolaanshaheeda kaymahaasaan gelaynaa waxay naga noqon doonaa haddii alla yidhi waa maybe dumarku inaanay maxay tahay waa laga yaabaa inay naga noqdaan laakiin intayada kale dhirtaa idiin dhaxaysa meeshii lagu dagaalamay iyaagaheeda baanu fadhiisanaynaa oo tegaynaa kana kici mayno ilaa inta aanu waxaanu doonayno aanu helayno meel aynu isugu wada nimaadno oo dhexdhexaada baanu degi doonaa u hoyan doonaa joogina doonaa haddii alla yidhi halkaa waxaanu kala tegi doonaa nabad buuxda haddii alla yidhi taasaanu kala tegi doonaa waana rajaynaynaa inaanu helayno mar labaad iyo mar saddexaadna aad iyo aad baan isimada odayaasha iyo deegaanka aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waana ku kalsoonahay waxaanu soconno inaanu sidaa ay maanta tahay si ka wanaagsan kala tegi doonno haddii alla yidhi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu